banka dhexe Itoobiya ayaa doonaya inuu xarun ka furto Somaliland waxaase uu ka walacsan yahay caqabada aqoonsi la'aanta ee Somaliland. wargeyska The Ethiopian Herald oo ku hadla afka dawladda Itoobiya uu soo xigtay wargeyska Geeska Afrika ayaa cadadkiisii shalay ku qoray in banka dhexe Itoobiya uu doonayo in sanadkan cusub 2020 uu isku ballaadhiyo dalalka Geeska Afrika oo ay Somaliland ku jirto. waxaana wargeysku uu sheegay in madaxda banku ay muddooyinkii dambe daraasad iyo qiimeyn ay ku sameynayeen suuqyada kala duwan ee Somaliland ayaa dhankeeda sheegtay in xeerka maaliyadda iyo maalgashiga ay dhankooda bishan soo gabagabayn doonaan aynu ku jirno. Sakarias oo ah agaasimaha maareynta maalgashiga ee bangiga ganacsiga Itoobiya ayaa ka wada qiimeyn si looga dhigo Somaliland mid ka mid ah meelaha bangigu uu xarumaha ka furan doono sanadkan 2020. waxaana la sheegay inuu soo gabagabeeyay durtaba qiimeyntii koowaad ee bangigu ka doonayay suuqyada Somaliland. Sakarias waxa uu intaasi ku daray in xasiloonida maalgashiga tooska ah ee shisheeyaha ee sii kordhaysay iyo GDP-ga geedigeedu uu kordhayo ay Somaliland ka dhigayso fursad suuq la doorbidi karo. hase yeeshee waxa uu yidhi ilaalinta nidaamka caalamiga ah ayaa caqabada soo faad saari karta maalgashi lagu sameeyo dalka sababtoo ah dalka oo aan si buuxda aanay bulshada caalamku ahayn mid ay u aqoonsan tahay.